dunidu wakhtiyo badan oo ay kobac horumar iyo hore u socod ballaadhan samaysay ibni aadamka dunida ku dulnoolinaa uu jiilba jiil sooyaal dheer oo aqooneed kala dhaxlay waxay labadii qarni ee u dambeeyey gashay casri aad u xasaasi ah. waa casriga tiknolojiga, taas oo maanka ruux kasta oo aan labadan casri noolayni uusan rumaysan karin in waxan oo dhammi ay dunida ka dhaceen. waxaa kordhaya isticmaalka aaladaha tiknolojigu la soo kordhay, waxaana qof kasta oo hadda dunida korkeeda saaran wakhtigan uu gacanta ku hayaa isticmaalka fikradihii isbiirsaday wixii ka dhashay oo tiknoloji loola baxay. waxaa la yaabaa inaad si caadiya cod iyo muuqaal safeexa aad ku maqasho kuna aragto toosna aad hadal iyo afkaaru la wadaagto shakhsi dunida halka aad ka joogto halkeeda kale ka jooga sida adiga oo la fadhiya, iyo inaad si fudud wakhti kooban aad ku tagto meel aad kaaga fog. waxaa suuragal ah amase dhacdayba in hub casri ah qaarad ka qaarad laga soo gano dad iyo duunyo badanna lagu baabi'iyo. taasi waxay sabab u noqotay in dadka dunida ku nool badankoodu ay xogahooda, siraha hantidooda iyo dukumentiyada ay leeyihiinba ay ku aaminaan kuna xifdiyaan waxyaabaha tiknolojiga ka dhashay. haddii aynu tusaale ka soo qaadanno, qof kastaa waxa uu isticmaalayaa taleefan amase kombiyuutar, gees kalena baananka oo noqonaya goobaha u khaaska in lacag lagu kaysado ee dunida intooda badani waxay u shaqeeyaan habka loo yaqaan online, taas oo qof kastaa u sahasha inuu goobta uu joogo helo lacagtiisa u diro meel kale, wax ku gato amase uu u isticmaalo sifo kale. si la mida dadka badankoodu waxay isticmaalaan taleefannada amase kombiyuutarka si ay uga dhex isticmaalaan adeegyada email iyo bahwadaagta social mediaha loo yaqaan, kuwaasoo qof kastaa xogihiisa, dukumentiyada amase arrin kasta oo muhiima uu ku kaysado bulshada, wax ugu soo bandhigo qaar kalena uu kala xidhiidho. arrimahaas aynu soo sheegnay ee ay tiknolojiyadu keensatay waxaa barbar socda khatar ballaadhan, taas oo ah in la dhaco hantidaada amase lala baxo xogahaaga xasaasiga ah, iyo in adeegyadaada si khaldan loo adeegsado iyadoo aan weerar toosa lagugu soo qaadin, hub lagu adeegsan, awoodna aanad u lahayn inaad aqoonsato cidda ku soo weerartay iyo weliba goobta lagaa soo weeraray. barnaamijkan kooban waxaynu daaha kaga qaadi doonnaa mid ka mid ah dadka ugu khatarta badan dunida, kuwaas oo jabsasho ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo haakinka ku sameeyey shirkado, shakhsiyaad, dowlado mareego aad u badanna hawada ka saaray. waa xamse binu dallaaj, waa wiil aljeeriyaana waxaa lagu tiriyaa hakariska farakutiriska ee ugu khatarta badan, waana sababta FBI-da Maraykanku ay ugu dartay liiska 10 nin ee loogu baadigoobka badan yahay dunida oo dhan. xamse waa shakhsi ka soo jeeda bariga dhexe oo wax jabsada kan ugu weyn, waana dunida oo dhan kan keliya ee wakhtiga kooban ugu biiray liiska milyaneerada dunida, waana mid ka mida dadka ugu da'day, gees kalena ugu khatar badan dunida, korkeedana saaran qarnigan 21aad. waxa uu ku dhashay Aljeeriya taariikhdu markii ay ahayd 1988, waxaana lagu yaqaan maskax badni, hal abuurnimo iyo geleelidda software dunida dhibaatooyin badan u geystay. waxa uuna ka qalin jabiyey jaamacadda University of Pennsylvania, waxa uuna dhigtay cilmiga tiknolojiyada 2008, wakhti badan, dadaal, karti badan oo uu geliyey cilmiga kombiyuutar sayniska. waxa uu noqday isagoo aan gaadhin da'da 20 jir mid ka mid ah hakariska ugu khatarta badan dunida oo dhan. xamse ayaa jabsaday 217 baan oo dunida ku yaala, isaga oo kasbaday malaayiin dollar, taasi oo ka dhigtay mid ka mid ah hantiilayaasha ugu hantida badan dunida oo dhan muddo kooban.
waxa uu samaystay brograam amase software qof kasta sida uu u garanog yahay oo uu ugu magacdaray ishii basaaska oo uu ku jabsaday 50 malyan oo kombiyuutar una fududeeyey inuu helo xogo muhiim ah taasi oo khasaare laxadle u geysatay baanan ku yaalla waddamada Maraykanka, Faransiiska iyo Israa'iil waxa uuna sabab u noqday inuu albaabada isugu dhuftay 8 milyan oo mareegaha ama websaydyada dunida daafaheeda oo ay ka mid yihiin mareego amase websaydyo dawli ah. xamse ayaa xogihii sirdoon ee xasaasiga ahaa ee uu helay qayb ka mida la wadaagay saraakiil reer qasa ah oo ku saabsanaa Israa'iil isaga oo dareenka la qaybsanayay Falastiiniyiinta siiba qasa waqtigii dagaalka ay ku wada jireen Falastiiniyiinta iyo dawladda Israa'iil. xamse binu dallaaj wuxuu afkiisa ka qartay inuu mar qura akoon uu jabsaday kala baxay 10 milyan oo lacagta dollarka Maraykanka ah. xamse waxa ay Faransiisku ku eedeeyeen inuu fiisayaal bilaash siiyay dhalinyaro Aljeeriyaan ah oo ay ku yimaadeen waddamada Faransa. xamse ayaa waqti dambe ka soo muuqday warbaahinta isaga oo jeebaysan farxad iyo reerreyn badanina ka muuqato garbahana ay hayaan ka mid ah saraakiisha dalka Thailand. xamse ayaa lagu qabtay madaarka Thailand iyadoo oo qabashadiisana ay iska kaashadeen waddamada Maraykanka iyo dawladda Thailand. waxaa muuqatay inay guulaysatay rajadii baadigoob ee wakhtiga dheer qaadatay. qabashada xamse waxay sabab u noqotay soo caanbixidda qisadiisa iyadoo ay wakaaladaha wararka caalamku si kala duwan uga hadleen. ตำรวจโทพานุเกิดลาภผลครับผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้แถลงผล One of the 10 most wanted by the FBI hackers, cyber Algerian activist Bendella Oy Hamza was sentenced to death by the United States court. ابتسامات عريضة يوزعها على كاميرات العالم. قرصان شبكة الانترنت مهندس الكمبيوتر الجزائري حمزة بن دلاج في قبضة الشرطة الفيدرالية الأمريكية الFBI بتهمة si degdeg ah waxaa xamse ula wareegay dawladda Maraykanka mar dambena waxaa la soo taagay maxkamad iyadoo lagu soo eedeeyay kiisas badan laguna xukumay 15 sano oo xadhiga. laakiin hay'addan sirdoon tan ugu khatarta badan dunida ee dalka Israa'iil mas'uulna ka ah amniga dalkaas ayaa xamse binu dallaaj u ballan qaaday inay ka sii dayn doonto xabsiga siina doonto lacaga aad u badan. waa haddii xamse uu ogolaado inuu la shaqeeyo una fududeeyo jabsashada dadka iyo dalalka ay dawladda Israa'iil u aaminsan tahay cadowga sida Falastiiniyiinta iyo Iiraan oo ay Israa'iil cadaawad soo jireen ka dhaxayso. balse xamse ayaa diiday nafkana ku dhuftay dalabka dawladda Israa'iil. waqtiyo dambe waxaa soo caanbaxday sheeko sheegaysa in xamse binu dallaaj ay dawladda Maraykanku dil toogasho ah ku filisay laakiin waxaa beeniyey nuqulka warkaas wakaaladda FBI-da Maraykanka oo caddaysay xamse ilaa hadda inuu xabsiga ku jiro.